gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah Diini Maxamed Diini ayaa ka hadlay xaaladda uu dalka iminka marayo. Gudoomiye Diini ayaa bogaadiyay go'aanka madaxweynaha ee dib loogu dhigay khilaafka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale bogaadiyay sida wanaagsan oo ay gudoonka golaha shacabka u aqbaleen in arinta wada hadal lagu dhameeyo. runtii maanta waxay ahayd maalin oo runtii aad farxad leh oo wax kasta oo maaragtay annaga walwal hoon qabnay bulsho rayid ahaan la xaliyay arrinkaasna waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inuu maaragtay taladii iyo dardaarankii shacabka Soomaaliyeed qaatay isla markaasna uu hakiyay maadaama ajandaha maaragtay baarlamaanka la isugu imaanay maanta ay ahayd ajanda aan lagu midaysnayn inuu maaragtay wax badan tala soo jeedintii shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka iyo qof kasta oo samajeclaha Soomaaliyeed inuu taladii iyo dardaarankii qaatay ugu mahad celinaynaa. waxaan kale ugu mahad celinaynaa gudoonka baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba inay maaragtay go'aankaas la qaateen oo maaragtay soo dhaweeyeen oo ay aqbaleen in maaragtay go'aankaas ay maslaxa ku jirto oo maaragtay wax kasta oo maaragtay aragti siyaasadeed lagu kala duwan yahay maaragtay lagu dhameeyo xal siyaasadeed iyo wada hadal waa aad iyo aadan soo dhaweynaynaa gaar ahaan madaxweynaha waa ugu hambalyeynaa. waxa kale oo jirtay dhanka kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay hadal ay baahiyeen qaar kamida warbaahinta Soomaalida oo si qaldan loo turjumay arrin maaragtay mar aan anigu waraysi siinayay soo baxday inaan anagu bulsho rayid ahaan ku eedeynay dawladda inay sameynayso inqilaab farsamaysan runtii wuxuu ahaa warkaasi war aan ujeedada shaxda iyo mas'uuliyadda bulshada rayidka midna ka tarjumayn eedeynta inaan anagu eedeynay waxay ahayd wax iyadu ay soo qaadatay oo maaragtay ninkii wariyaha uu soo qaatay marka waxaan dareemaynaa inuusan ahayn arrinkaas arrin aan annaga go'aan ku gaarnay inaan ku eedeyno dawladda isla markaasna maaragtay mawduuca markaas ku jiray marka taana waxaan ka bixinaynaa raaligelin oo haddii xitaa si aan haboonayn anigu aan u xigtay maaragtay dad aragtida noocaas qaba xitaa ma ahayn aragti sax ah inaan soo xigto laakiin muhiimaddu waxay tahay in aan fursaddan ka hambaliyayno fursaddan madaxweynuhu bixiyay oo baarlamaanka shirka ugu baajin aan ka hambaliyayno inaan kula dardaaranno maaragtay Cabdicays Cabdullaahi Maxamed Cabdicays Riili Somali Cable magaalada Muqdisho.